السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي أدبان إدي السلامي بعد السلام مالما على سلح مرية أفر لا تجي ساعة يودن بيسوا على سلح مرية أرين كان السجاء نكار الليرة اللي ركبت الأيوب يا شيخ خاص أريما رحمري وإن شاء الله هو أينو كبوغان إن شاء الله الشيخ فكرك وكأمسين يهي نماك إياك أحدقالك اللي يقول الجرة فكرك أولا ما يسترم إن شاء الله أنا داولنا كودا بوغان هدو اللي يدمو adigana daawada waxaan ka codsanaya hadduu ku soo gaaro insha Allah channelkeena Xursha TV subscribe ku dhufo balaalkan fur insha Allah saad ugu mid noqoto teamka Xursha TV aad baad u mahadsantahay daawasho waan insha Allah ugu horeyn dawladda Puntland waa ku bogaadinaya runtii dadaalka ay galeen iyo inay maanta u istaageen dadkii 10 sano ummadan dhibta ku hayay naftooda iyo maalkooda waxay dilaan iyo wax hawlahooda ay dhacaan iyo waxantidooda ay gubaan ka dhigay iyo waxay qaxiyaan maanta inay maamulku u istaagay inay la dagaalamaan ummadana ay ku mideeyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay hawshaas meesha ka wada maanta fursad bay haysataa dawladda Puntland shacabkii iyo dawladdiiba waa loo mideysan yahay fursadaas ha laga faa'iideysto oo dawladdu yaani dayicin juhuudda badan oo la bixinayo mid walba meeshii loogu talagalay waa inuu galaa dhinaca kale waa in cid walba oo hawshaas wax kala qaban karta dawladda wax allaale wixii shariicadu ay banaynayso inay ku talaabsadaan waa waajib cadowgan waa cadow caalami ah sida la og yahay oo aan waxba reebayn adiguna waxaad awood u leedahay waa inaad ku talagasho waxaad qabsan ka dhig waa inaadan haqran wax badan baa la qaban karaa dad badan oo maxaan ku raahdaa la kaalmaysan karo baa jira oo maxaan ku raahdaa daacad ah oo ilaahay dartii wax u qaban kara cid allaale cid hawsha wax kala qaban karta waa in siyaasad iyo wax kale hor istaaga midna aanay jirin hana ku socoto go'aanka ay qaaratay Allah waa tuuli fayda azmada fatawakkal ala Allah mardaad go'aan fiican qaaratid ku talaabsaa lagu yiri nabiga kaleey salaatu wasallam ilaahina talada u dhiibo dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo xasan sheekh madaxda uu yahay war dagaalka lagu jira waa keedi wadanka amnigiisa iyada mas'uul ka ah waa shaqadii iyadu wadanka ay u ballan qaaday inay u ilaaliso waa inaysan waxba kala harin dagaalkaas wax allaale waxay heli karo inay ku bixisaa waa xil saaran oo adduun iyo aakhiraba lagula xisaabtamayo shacabkuna ay kula xisaabtamayaan ilaahayna uu kula xisaabtamayo maanta xilkii ka saraa dagaalkaas haday hakradaan waa la ishayaa iyo waxba la isku diidan yahay midna waa inaan hor istaagin dhaqankaana 10% hadii la isku hayo 90% kii kale hal la waayo arintaas sax maaha bini'aadamka adduunyada iyagoo ishaya ayaa haddana wixii dano ka dhaxaysa ay wada qabsadaan oo ciddii cadow u wada ah ay la wada dagaalamaan marka